Salaad Cali Jeelle oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladii ugu dambeeyay ee dalka. Ugu horeyn, siyaasiga Salaad Cali Jeelle ayaa ka dhawaajiyay in howlgalka la magac baxay xasilinta caasimadda uu suuro geliyay xasilooni iyo in nabad ay ku afuraan shacabka. Waxaana uu hoosta ka xariiqay in dawladdu ay kala hadashay beelaha Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda arrimaha hubka dhigista dadka sida aan sharciga ahayn hubka ugu dhex sitaa magaalada gudaheeda. runtii horta howlgalku sidii uu bilowday dawladuna runtii beelaha waa u sheegto way kala hadashay, marka waxaan u arkaa horta horumar wanaagsan maxaa yeelay dilkii waa yaraaday iyo dhibaatadii shacabka lagu hayay muddadii la bilaabay hubka dhigista saadka warqabtaba hadda ramadaanul kariima la galay si wanaagsanaa loo afuray alxamdulillaah ayaan leenahay. dhinaca kale Master Salaad Cali Jeelle ayaa shaaca ka qaaday in dawladda cusub ee uu majara u hayo madaxweyne Farmaajo muddo kooban ay rajo weyn gelisay shacabka, waxaana uu sheegay inay wax ka qabatay arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa, amniga, bixinta mushaaraadka shaqaalaha rayidka, taasi oo uu sheegay in mustaqbal ifaya ay u muujisay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. runtii dawladdaanuna 3 arrimood oo hadda horumar la dhihi karo ayay gaartay oo bilow wanaagsan. horta corruptionkii way la dirirtay oo dakhligii wuu soo kordhay. waxay kale mataqaanaa dhaqaalihiina halkaas ayuu soo kordhay markii corruptionkii lala dirira dhaqaalihii baa soo kordhay. waxaa kaloo ay gaartay amnigina horumaray ka gaartay oo hubka dhigistaasi ama dadka hubka la wareegeysanaya oo markaasi haddee aan meel ammaan uga shaqayhayn oo markaasi dhibaatada ilaan shabaabka iyo ninka aan hubka si sharciya ku wadan waa isu ekaanayaan maxaa yeelay lama kala yaqaano. marka waxaa la dhihi karaa marka taasna horumaray ka samaysay. arrimaha marka kaleetood oo mustaqbal wanaagsanna waa soo ifiyey markii ay soo baxda in corruptionkii lala dagaalana haddee waxaa soo baxaya mustaqbal wanaagsan. markaasna mar uu ka hadlayay Salaad Cali Jeelle dadka dhaliishan hubka dhigista ayuu shaaca ka qaaday in dawladdu ay waajib ka saaran tahay in shacabkeeda ay siiso nabadgelyo, taasina aan loogu aabayeelaynin dadka hubka in ay ku dhibaateeyaan raba shacabka sida uu hadalka u dhigay. shacabka magaalada Muqdisho ku nool ay nolol iyo xasilooni ay helaan ayaa waajibka saarana. sidaa darteed marka qofkii yiraahda hubka la qaadi maayo wuxuu bedel ma heli kariyo oo dadku ay ku noolaadaan, marka taas waayana waxa la diidan yahay oo aan cidna aqbali karin inay dadka argagax ay ku noolaadaan. maxaa yeelay waa ogtaa sanadkii la soo dhaafay in 5,000 ku dhow oo qofood ayaa ku dhimatay Soomaaliya, taas oo adduunka markii la barbar dhigay oo Boko Haram iyo ISIS iyo wixii argagixisaha oo dhan Soomaaliya ugu dhimasho badan. marka meeshaas dhiigbaxaas oo joogtada ah arrin hadda Soomaaliya dan ugu jirtana maahan, arrin loo dul qaada karana maahan, arrin dawladda Soomaaliya loo doortana maahan. marka in arrintaas ay wax ka bedesho oo ay mataqaanaa dadka dhimashadiisa yarayso oo ay cadowga mataqaanaa ay gacanta la gaarto hadda waajibkii loo doorta waaye haddee waxyaabihii lagu dawladii hore looga cabaayayna kamid taha. marka inay dawladdaani marka ay tii hore ka bedelnaatana hadda waa waajib. dawladda cusub ee Soomaaliya ayaa kumanaan askari oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka saartay magaalada Muqdisho. wixii ka dambeeyay askarta ay ka daadgureysay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay bilowday howlgallo ay ku beegsanayso shakhsiyaadka hubka ku dhex sita gudaha magaalada caasimadda.